سبحانك يا عظيم بالوحى صوص عضائق Vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas sans savoir. L'étoile de la faïence. Depuis votre retour sous vos ordres. Sous vos ordres. En février 2020. 2020. سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم
subxaanaka yaa cadin waa li xasuus gurihii inoogu timi miyaana hayn iyadoo lugaynayso daahiriya shamisa deniyo usuulkii layriisu cadiyo wax isu sheega xumaha iska qabto wanaagga isfara baa la yidhi dadkii baanu wadnaa inaanu xumaha iska qabanno. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة واحد إنه وبرتين برنامج دي جيبوتي توس يا حسن دالية وحلينا داودها داونية أنت نداود واحد كلا سعنتين برتها أو لايف فيسبوك قدرنا واحد داود يوتيوب وحلينا هيدا ومدر جيبوتي أنت قربها جوتي أنت قدها جوتي وحلينا أنت بقتنا الله عافية أنت عارف ما قبتنا الله سيادي لأن هاي بشدة من وحدنا وحلينا بشدة من وحدنا سود وهذا ونكسن أو عم dhammaantiin waan soo dhaweynaynaa daawasho wacan inta toos u daawanaysay inta madaragtay gadaalka daawan doontaba kulliba waxaan nooga bartaan jimcihii inaan ii daadiino barnaamij aad iyo aad u xiiso badan uu ila daadiyo habeenka jimcaha oo dadka reer Djibouti ay aad u xiiseeyaan xasan sheekh xareed oo aad iyo ummadda reer Djibouti u heegan habeenay dhalarna hawlaha ummadda reer Djibouti sidii u horumari lahayd mar waliba u heegan oo ku jira حتى كل برامج الجمعة وحنا قاعد برت برامج آدو قروح بدن آدو في عن ضدكنا أي آد كوجود حريين بشدة الصوماليات بشدة غير جيبوتي سؤال حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم حسن وانكودوا هاي برنامج كيني جمعها وحويا ما أنتوا الجمعة سيدي أن ضدكنا قبرتين وحلينا هاي سودة هذا نلقى بصدى برنامج برنامج وحني هيني برنامج كيني تضبط لها waxaweyaan soo dhawaadaan leen dadkana dhageysanaya waad maadsantahay xasan oo diyaarna waanahay waanan soo dhaweynaya dadkana dhageysanaya duleeyo aad baa u maadsantahay xasan waan kaaga mahadcelinaya kulli waxa lagaaga bartay wax wanaagsan inaad jimco waliba u soo bandhigtid bulshada Djibouti iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan inta afkaaga Soomaaliga garanaysa ee kugu wada xidhan dhammaantood waxaan leenahay soo dhawaada kulliba barnaamijka Djibouti toos ka baxayna waxa weeyaan bulshada waxaan la wadaagnaa mar waliba wixii ma daragtay ummadda ay u baahan tahay in laga caawiyo wixii geeskeena ka dhacaya iyo wixii dib ummadda laga qaranay waayo xasan waan ku sii soconayaa barnaamijkeennii maadaama uu yahay barnaamij maalin jimcaha oo aad u weyn oo maalmaha ma daragtay aad ummadda u galaan ma daragtay sadaqada loo bixiyo dhinac waliba dadku ay isa soo salaamaan ay yidhaahdeen jimca mubaarak marka dhammaan waxaa la wada leenahay ummadda islaamka oo dhan ee adduunka ku nool jimca mubaarak baan leenahay. اوكي حسن وكنت سؤالنا يا برنامج كيني كل ما واحد بدقلنا حسن او سؤاله هني ادو وناكسنا ادو ديرنا سؤاله هني ايين سؤال داوي waxaan ku horeynaa ya xasan oo xakaayo Soomaaliya waxa jira sargaal ka howlgala maaragtay ciidamada jamhuuriga ilaalada madaxweynaha Djibouti Maxamed Jaamac Ducaale baa la ninkaas asalkiisu wuxuu ka soo jeedaa Soomaaliya gobolada maaragtay waqooyi sida iyo gobolada maaragtay hadda uu maanta u tagay sababtu u tagay xasanow Maxamed Jaamac Ducaale Soomaaliya u tagay leeyahay bal wuxuu ka doonay iyo arrimahaasi isku xidhay inuu Soomaaliya mar waliba u tago goboladaas uu gaar ka hayo arrintaas xasanow waa wax soo noqonaya sidee ku dhacdaa xasan inuu mar waliba soo sargaal ciidamada madaxtooyada xukuma sidoo uga shaqeeyaa arrimahaasi Soomaaliya halka jira bal socdaalkaasi wuxuu ku saabsan xasan oo loo taataabo oo umada kula wadaagto xasan waxa weeyaan ninkaasi dhowr jeer baan ka hadalnay Maxamed Jaamac Ducaale la yiraahdo waa ninka xukuma ciidanka madaxtooyada ee Djibouti xukuma la yiraahdo ciidanka madaxtooyada waa ciidan u sameystay Ismaaciil Umar oo gaar isaga oo ilaaliya ciidankaasi waxay u badan yihiin muxuu ahaa ciyaal adeer u yahay Ismaaciil Umar iyo u badan yihiin badankoogana halkan iyo Gaarisa uu ka keenay xagga xadka uu ka soo talaabiyo xagga Soomaaliya uu ka soo talaabiyo badan yihiin marka dhalintaasi uu meesha ku urursaday waa dhalin kursiga ku ilaalinay ugu talagalay inuu ku ilaaliso weeyaan waxay ku ilaalin kartana ma jirto waa maalinteeda markay timaado waa la isarki in lagu ilaalin karo in kale kursiga ayaan arkaynaa waxa weeyaan ninkaasi Maxamed Jaamac waa nin dagara badan ka geystay Djibouti oo la garanayo si fiican loo hayaarimihiisa ninkaasi waxa la yiraahdaa ciidanka jamhuuriga ayuu madaxtooyada ama ciidanka jamhuuriga ayuu xukumaa ciidankaasi ma xukuma aqoon horta uu leeyahay ku xukumo ma jirtay waa galoomada oo loogu taltalo inay waxa weeyaan waxa meesha lagu dhigo waa inankan ilmaadeerka inanka adeerku aan baa lagu dhigay yuu kamid yahay waliba kuwa ugu horeeyay kamid yahay safka hore ku jira
marka ninkani waxa loo diraa shaqada ciisaha degan geeska Afrika ayuu ka shaqeeyaa ama Soomaaliya deganadana ama Ethiopia qalalaasoo ka shaqeeyaa kilalka canfurtu ka shaqeeyaa oo loo diraa inta bu dhex wareegaa ninkan uu ka shaqeeyaa ma ahin ciidankan madaxtooyada ma ahin ciidankan madaxtooyada waxa loo sameeyay inay amniga sugaan dawladda mas'uuliyiinta dawladda iyo dadka martida u imanaya inay sugaan laakiin isagu wuxuu noqday nin wadanada jaar ka shaqeeya wasiirkii arrimaha dibadda ee Djibouti baad moodaysaa marka wuxuu ka shaqeeyaa waa dhib iyo qas iyo isku dir wax ayuu ka shaqeeyaa waanagii hore u soo sheegnay garbaciisa arrimahaasi masiibadaasi inuu isagu kamid ah raggii kiciye loo diray aqalka ogaaska yarkeeda ogaaska lagu sheegay dardaba joogay ciisayna aqalkiisa loo diray oo raggii halka commissionka ka sameeyay inuu ahaa waanagii hore u sheegnay waxa imika xasan uu soo biiray oo ka hadalnay maalmo dhaweyd laba oday oo lagu caleema saaray lughaya yaa jiray labada oday waxay ahaayeen reerka maasan leeyahay si waliba waxay ka ahaayeen Cabdilla Gadiid waxa weeyaan Badr Xaani reer cigaal bay kala ahaayeen muxuu ahaa maxay xasan bay ahaayeen muxuu ay sheegeen cawl bay ahaayeen cawl waxa isku ahaayeen Cabdalla Gadiid waxay ahaayeen muxuu waxaan u jeedaa Cabdilla Gadiid iyo Badr Xaan bay kala ahaayeen labadu midna Badr Xaan waa midna Cabdilla Gadiid waxa marka lagu caleema saar hadaad eegtid caleema saarka loo sameeyay sawirka meesha ugu yaala waxa ku yaalay cuqaashi beesha ciisa ku qornay ما عقاشي ما هين عقاشي عبد الله جديد يا ما عقاشي ما صني نقول وحاس عقاشي باش عيسى لو قري markii labada la caleema saaray kadibna yarkeena ogaaska lagu sheegay darraba joogaya orod ku tagay Hargeysa telefoon baa loo soo diray Maxamed Jaamac baa xukumay isaga telefoon buu soo diray orod Hargeysa ku tagay halkaaba ku soo saxaynayeen labada oday ee laga dab qaadanayo waqooyiga Somaliland dhulka ciisu dago deegaanka ciise guban la yiraahdo wixii ka soo baxo dhan wixii arin jiro dhan iyo wixii laga tashanayo dhan inay dawladda Soomaaliland labada ka hadasho oo kuwa kale ee reeraha kale halka degan ciise duqeydooda iyo odayadooda la hadal oo ragga wax laga waraysto kuwaanayna kuwa ku xirmaan fikirku sidaa buu loo sameeyay raggaasi oo filim marka dambeed la doonayo in loo isticmaalo dadka ciise halkaana qaar la laayo waxa la doonayo in loo isticmaalo Soomaaliland oo isaaqa loo isticmaalo isaaqa loo dhaxgalo hebel baa halkan ku xiriyo hebel baa halkan ka soo dhaxay la yiraahdo sidoo kale loo laayo xasan oo ku soco wax weeyaan marka labada ii sheeg labadaasi labada oday waxa loo sameeyay fidnad baa loo sameeyay labada oday halka la sameeyay fidnada loo sameeyay waa in loogu isticmaalo isaaqaasi ciisaha qofkii la doonayo hadhow loogu dilo afartii ilma gaarisay ee Djibouti joogtay Ismaaciil Marmada wuxuu ahaa kursiga u cabsoonaya dhinaca la u qaadaan bay garan lahayn baashi way wareereen marka waxay isleeyihiin meelahan laga soo socdo waa dhuka ciise iska xira iska daboolay leeyihiin marka arrimuhu waa sida xaggan Ethiopia waxa loo sameystay yarkii ogaaska la yiraahdo ogaas Mustafa la yiraahdo loo sameystay ciise Ethiopia inay far dhaqaajin oo lagu dul joogo kuwan Soomaaliyana xaggan Soomaaliya kuwa degana waxa loo sameeysanaya labadan oday waa ka loo sameysteen ka hadalnay marka labada oday waxa marka halkan kaga hadalnay وصل دقائق هذا سلام طبعا بلعبنا يلا يلا تعالوا وصل بس هاي waxa weeyaan odayaasi walaaldoon amba hawla qaade cadaaladda xeerka anaga waxa la ilaa walaaldoonka xaqiisa ayaa xeerka jira oo ku dardaaray cadaaladda xeerka Xuseen Xoosh Buux oo holla ayaa isaguna ducada raacinay waxa weeyaan riwaayadani waa riwaayadii labadii oday ee lagu caleema saaray maxay ahayd lagu haya xasan oo sheegay in uu adiga arkay waxa loogu yeeray howliyaha hawlaqaata ayaa ku dhawaaqaya la yiri oo waxa loo yeeray hawlaqaata ayaa la yiri xeerka ciisaha ayaa isaga ku dhawaaqaya waa ogaasyaal yaryar waxa la sameeyay waa la ogaasyaal yaryar ogaas ku xigeenna yaryar waxa la sameeyay sheekadu sida u eg tahay marka waxa weeyaan waa nidaam muxuu ahaa lagu maxay daqiiqad yaran noqdo waxba waxa weeye marka waa nidaam lagu wareerinayo beesha ciise loogu tashanayo tani ma aha wax odayaal lagu sameeyay waxay ahayd dhabar jibis lagu sameeyay beesha ciise oo nidaam lagu sameeyay beesha ciise lagu dhabar jibinayay waxay marka arintii halkan xasan oo kaga hadalnay way socon weyday shaki baa xaqii Soomaaliland galay saaqi inay
raggii saaqa yiri war anaga maxaa naga galay oo ciisaha aan ugu kala baxaynaa inuu anaga Ismaaciil marna adeegsada maaha bay rag badan yiraahdeen oo ciisana loo adeegsada maaha bay yiraahdeen arrintaasna arrin sax maaha bay yiraahdeen markaas waxa dhacay dabadeed arrinta markay dhacday waa ta Maxamed Jaamac waa ka orday jimcihii dhaweyd jimcihiina soo dhaafay ayuu orday jimcihiisii buu orday Hargeysa ka baxay halkii buu tagay halkii buu yiri waa in la aqoonsadaa labada oday oo Soomaaliland ay aqoonsataa marka waxaan leenahay ciisaha degan gubal iyo Itoobiya degan ba iyo Djibouti degan ba la socda arrintaasi raggaasi halkaas waa rag la sameeyay in ciisaha lagu laayo labadaasi waa laba nin oo laba oday oo cadow oo ciisaha cadow ku ah markayna ogaaska lagu sheegaya dirdaba joogan oo ogyahay arrintaasi si fiican buu ogyahay una ka qayb galay haduuna ogeyn waxa weeyaan inuu ka hadlay sidoo uga hadlay kii lagu qabanayay suldaankii maxayday waxba ku qabsanayeen Ethiopia uu ka hadlay oo gandii qolada gandaa ku sheegay garab fadhida ee garka cas asla way ka hadleen laakiin labadani lagama hadal oo waxa la yiri beesha ciise ku matalaan meesha ayaa la yiri mana jirto beel ciise isku tagtay oo go'aan ka qaadatay waa labada nin ee ku dhawaaqay waa howlii hawl qaadan leeyahay waa laba nin oo laga diray Djibouti oo Ismaaciil Mar shaqeeya sheekadana waa sheekadii loogu talagalay in ciise dhabarka laga jabiyo waa waxyaabaha garba ciise ka dhacay bay kamid tahay sidii lagu laayay garba ciise dadka kamid tahay wax sidii garba ciise lamid ah halkan laga wadaa imika Soomaaliya marka waxa leenahay dhageysiin dadka halka joogay diyaar noqda yaan leenahay ciise dega Soomaaliya haday wax dhib anigu timaado cadowgiina waad garanaysiin iyo wuxuu joogaa maxay hayday iyo Gaarisa joogan cadowgiina baan leenahay waxa la doonayaa in ciise dega guban loo tilmaamo Boorama iyo loo tilmaamo Gabiley oo la yiraahdo Saaq iyo Gadabursi baa lagu soo duulay in la yiraahdo sida cafarta iyo madaxa la isku galiyay ciisaha city ee galbeedka Ethiopia ciise meeshu dego ku dega Soomaalidu madaxa la isku galiyay maxay hayday cafar iyo ciise يا الله وضع حسن وين هالكن جبن سومالي لأن إمك إسال كاجو مدح لوجو جليو إساق يو سيو اللي بهبر وليو إن محير مدح لوجو جليو إن هبر وليو جد بورسي لوجو جليو وأنا قارك جلين كان إنما يرجعوا إسماعيل هذا روي هاي وميلان جد بورسي إساق كحايا الله يرهذا إنما كلو إسماعيل أبتي وتوصل أو يرو جد بورسي ميلان العجلة سيا ميلان بعيساق كحايا الله يرى إنترنت كا waxay oo dhan filinkaay oo dhan waxa weeyaan waa finnad abuur si dadka madaxa la isku gelin lahaa un baa loo wadaa finnad abuurkaasi waxa loo diyaarinayaa raggan odayadani markaa waa ragga loo diyaarsan doono marka waxa dhici doona waxaan leenahay annagu dadka deegaankaasi ee maxay dega guban ee ciisaalka dega guban waxaan leenahay war cadowgiina iyo ragga dagaalka nagu hayay waa lughaya iyo Gaarisa ogaada haday dhibni timaado meeshan laga soo weeraray waa lughaya iyo Gaarisa inaan la khaldin sidii ciisaha garbaciisa iyo dhulka loo khalday inaan la khaldin ee waxaan leenahay muxuu ahaa la socdaan leenahay arrintaasi waa lughaya iyo Gaarisa waxa dagaalkan laga hayaan leenahay la socda wayahay xasan aad baa u mahadsantahay kulliba xasanow hadalka nuxurkiisa iyo hadalka wuxuu u baahan yahay in hoos loogu yaraado xasan waxa weeyaan dawladda Somaliland waa dawlad maad aragtay adduunka laga aqoonsan oo aqoonsi raadinaya sidii aqoonsi u heli lahaayeen miyayna dhibaato u keeni kareen dalka Soomaaliya oo mar waliba ciidankii Djibouti ka howlgalayay inay iyagu xitaa dariiskiisa inay ka dhaadhacaan iyagoo helicopter wata dalka Soomaaliya oo waliba dhinacan maad aragtay xeebta Djibouti maad aragtay dhinacan Somaliland miyana ma daragtay xasanow dhibaato u keenin halka ciidanka waayo waxa jira ciidamo ma daragtay ajaaniba oo sida Mareykanka iyo ciidamo kale oo aad u fara badan waxa soo dhaweey la socdaan oo diyaaradaha halka maraya ay kala dhacay miyana dhibaato u keeni karin Djibouti xukuumadda Djibouti iyo dawladda Djibouti waxa weeyaan xasanow ciidamadan reer Djibouti ee dariiska ugu siita Somaliland tagay horta meeshan Somaliland waa meel gacanta ku haya Ismaaciil Umar oo macaan baa ku socda marka isaga iskale rag badan oo ka dooday oo reer Somaliland jira anaga ma dad reer Somaliland oo arintaas ka hadlay oo ka maxayday diiday baa jira laakiin se waa la maquuriyay ragaas waa la maquuriyay xisbiyaasha rag kamid ah jiri war meeshani anagu soo Djibouti ma Djibouti xuran manihiin arimaha faraha kala baxday yiraahdeen waa laga xoog batay ragii oo waa la maquuriyay marka arintaasi xasan way jirtaa oo waa laga cawdaa laakiin se meeshan isaga gacanta ku hayo kale baasaboor noqotay kale dhaqaale noqotay waxba ku socda oo macaan badan baa ku socda meesha oo adu waa xaggan Djibouti baa waxoogaa laga nool yahay siyaasiyiin badan ka nool yihiin marka xaggan ku xidhan waad ka garanaysaa musabixina inuu ahaa gacan ku rimis oo Ismaaciil Umar ay keeneen iyo Khadra Xayduu inay ahayd oo lagu qasbay Somaliland oo dusha laga saaray oo ahayd waad ka garanaysaa marka
arrinkan dhaqdhaqaaqa Soomaaliland iyo siyaasadan iyo waxaan oo dhan ba lug bay ku leeyihiin waxyaabo badan oo kamid ah qaskii Muqdisho qaska Soomaaliya Ismaaciil Bacaabaka kolay Soomaaliland ahaatiyo kolay meeshan inay horta Soomaaliland dawlad noqoto la aqoonsada ma ogolo Ismaaciil Umar inay Soomaaliland Muqdisho isku noqdaan Hargeysana ma ogolo labada midna ma doono isagu wuxuu doonayay kol kastaba inay halkaan taagnaadaan oo iska lushaan oo dhamaanin maxay dacwadood iyo buuqoog isagu markaa waxa weeyaan kol kasta waa loo baahanayaayo aabihii Soomaalida la oranayaayo dadkan waxba ma fahmayaan aabihii Soomaalidan bay ku haynayaan oo bashir buu qaban kar waayaysan kulna bambada lagu qarxinayo diray ma aragtay marka waxa weeyaan meeshan isaga iskala waa garoon ku ciyaaray noqotay reer Soomaaliland waxaan leenahay Soomaaliland waxaan leenahay war iska soo ceyriyay ninkaasi arrimaha Ismaaciil Umar dhinaca iskaga qaada haddaad doonaysiin wax ni hirgalaan ama horon bad u socon lahaydeen aqoonsi bad heli lahaydeen ama waad ku baabi'i lahaydeen waxaad ku qasbanaan lahaydeen Soomaaliya ku noqotiin laakiin inta Ismaaciil Umar sare hoos ni wada dhinac buu dhaqaaqayay halkii baa joogaysiin maalan aad baa u maasanta xasan oo kaaga mahadcelinaya anagoo ku sii soconnaa barnaamijka intiisii kale daawadahan daawanayna waxaan leenahay aad baa u maasantay kusoo dhawaada barnaamijkii oo sii guda galayna iminka su'aalihii siday su'aal bay ka weyn tahay waxaan galaynaa xasan kolleyba aan jecelahay inaan la wadaagno sawir qaadaha iyo maaragta codadka noo soo tabanayna video xasan waxa jira Soomaaliya waxa ka dhacay inay iskugu yimaadeen beesha Ciise dalka ku nool koonfur magaalada Muqdisho ay diidan yihiin xasanow in dadkii hore ee magaca Ciise matalayay ee ku dhex jiray baarlamaanka ama maaragta xildhibaanada inay yiraahdeen muddo farabadan mad ku jirteen marka meeshan wax xun baa ka socda meel kale wax laga maamulaa dadkana meel kale laga soo caymaa maanta waan diinay dad kale bal iyaga maxaad oranaysaa iyo videogu waxa weeyaan xasan way jirtaa oo si doorashadan imika soo socota ee baarlamaanka waan ognahay kuraasta Ciise halka ay ku leeyihiin waa 9 golaha sare oo mida iyo 8 baarlamaanka hoose waxa weeyaan kuraastaasi waxa weeyaan Ismaaciil Umar baa dooran jiray sidii shirkii carta loo qabtay isaga faylka sameyn jiray ama liiska 9 qof halka Ciise ku matalay isaga sameyn jiray isaga u diri jiray dawladda Soomaaliya isaga u diri jiray dadka isagu doortoon baa meesha la dhigay in 20 sanaba waxa jooga kuwii isagu doortoon baa jooga cid kale ma joogan markaas qaar 20 sano in ka badan ku fadhiyana way jiraan oo meelaha iska fadhin jireen malaha way jiraan baan malaynba kursiga iska sii fadhin jiray bad intuu dawladdu baabaasanay xabad kursiga iska iibsadana way jiraan oo imika ku dagaalamay midisiita jira marka waxa weeyaan kuraastaasi markii dhaweyd waanagii waa kii isqaad qaateen rag dibadda jooga oo beesha Ciise kamida oo yiraahdeen war kuraastani raggan dhaxal uma helinay waa in doorasho lagu helaa fayl baa la sameeyay 9 qof oo 9 nina 9 qof oo kamida beesha Ciise waxa loo diray dawladda Soomaaliya waxa la yidhi kuraastaas sida beelaha kale loogu tartamay inaan ugu tartamaan doonaynaa baa la yidhi way arrintii waa loo ogolaaday dawladda Soomaaliya way ogolaatay daawanayna bal dadku waa nala jaleecaan videoga dawladda Soomaaliya ayahooda siyaasadeed iyo matalaadda ay ku leeyihiin dalka ay uga tashanayeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waryahayga sida Cabdi Tahliil ayaa warkaasi noo haya shirweynahan oo ahaa mid ayahooda siyaasadeed ay uga tashanayeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka aqoon-yahano haween dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee beesha maanta shirka yeelatay ugu horreyn waxaa shirweynaha ay ka tashiga siyaasadeed ee beesha ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii iyo aqoon-yahankii ka qayb galay kuwaas oo sheegay inay muhiim tahay in doorashada sanadkan ay noqoto mid hufan maadaama dadka beeshaasi ku matalay dawladda ay diideen in la tartamo isla markaana loo baahan yahay in isbedel cusub u imaado maadaama dadkan ay beesha soo matalayeen 20kii sano ee la soo dhaafay ujeedada shirka la isugu yimid waxa weeyaan shirweynaha beesha Ciise ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo wada tashi isugu yimid oo maalmahan wada tashi u soo socday iyadoo ujeedadu ay tahay isku duubnida beesha waxaan rabnaa isbedel dhab ah yaa rabnaa 20 sano horta intii haysan jirtay ayna horta wax isbedel ayna loo sameeyay wax isbedelana ayna ka qaban beesha Ciise ayna u qaban marka meel kastoo joogo Ciise
gacan mida waa walaal waa wasiiriyo inankiisi iyo inantiisi weeyaan sida dhabta waxaan jecel lahay inaan gacmaha isqabsano dad badan oo maartay caawimaad weydiistay ayna xagga haba yaraadee caawimaadna ayna u fidin ay yidhaahdeen qaar kamida ay yidhaahdeen guriga hadday hooyaday imatay yaan laga soo gelin waxaan leeyahay daalimo leexdeen nimankiina dilaalay dadku ay u samreen ee waxay doonaan sameeyo dabaylaha la sheego beeleegu niga gaadh dal-aan waa tegaysiin waxba yaanan dilaalin waxba yaanan daalin xaqu dilada diiku dadku way naceen wax badan bay midaawanayeen ilaahay dadkii u samreen وهو يجد عليه ضوئيلتنا أرض السفرة دولينا الداية تطول من عين دولينا الداية هو خير قرار إلى هذا الهوب الدلوع أيام الله يستوى مطر وفقا إلهي كفر يلينا إنكم اسكتوا إلهي دراسي دريجي لأمره دولينا الداية عيسى دولك وجوغا إن الحقيرة ما أهان يضو حقين اللي قفر ديي oo naloo diiday in wax naloo qabto haddana in la yiraahdo ciise dhulka ma joogo ma soconayso ciise wuu joogaa wuuna buuxaa wuuna badan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin gaas cawaale oo ah caaqilka guud ee beesha ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in sanadkan beeshu ay soo doorato shakhsiyaad si dhab ah u matali kara beeshaasi waxaan kaga tashanayna wadaan beesha ciise إلى كل مرة أقوم بذبح المعمدين عاصي إن قليل ولا تكسر النظر نورتي لي حرب شغالة أو شغالة تسمعني التميلة وعن أهلي بلاد عيسى المجنون وعن تصلنا دولة الصومالية يوم الصومالية طبعا مخاطر ولينا إنه عيسى بلاد القدسور وجوه فينا وقوة الإنسان. طلبات وحنا كنا نشجعنا الأولاد عن كل النساء وقلنا سومالي وديوتي سرقت هاي وعندما نجي بس إذا مثلا يقع الشجاعي أنت سؤال من وايد عزيز دول البيان وشو أما سومالي لامبا أي تلك ديوتي سرقت وقعدها الأولاد عن كل النساء وأنا كنت أولادها بقصة كل جزء أولادها. الرحمن الرحيم. واك حسن وسدا نركيني waxay ahayd inaan halkii ka sii yar wada adoo raaliye waxa weeyaan 20 sano dadkii ku fadhiyay arintii aan lagu dhaqaaqay ee raggan qurba joogta ciise ku dhaqaaqeen waxay keentay rajo fiican waxa timid inay dhalintii jaamacadaha ka soo baxday wax baratay ee beesha ciise ee ka soo jeeday Soomaaliya ee Muqdisho joogtay inay yiraahdaan war anagu waan tartamaynaa markan kuraastiina waan u tartamaynaa ma dhici karayso inuu dhowr qof oo meeshan dhaxal inay moodayaan u helo 20 sano dul fadhiya ma noqonayso marka kuraastii imka tartan baa laga dhigay laakiin qoladii meesha iska fadhiday uu Ismaaciil Umar uu aabaha ka ahaa way diidan yihiin tartankii way diidan yihiin way dagaalameen oo islaan meesha joogto mijibeeba qaadatayba oo mijibeeba gosha ku sidataa hoosta ku sidataa marka waxay isku dayayaan si kastaba inay sameeyaan si uu u dhicin loolanka kuraasta lagu loolamayo si ay u dhicin bay isku dayayaan mar kastaba ay ugu hortagaan marka waxa weeyaan muxuu ahaa loolankaasi waxay u sameynayaan loolanka waxay u diidan yihiin si halkooda ugu soo fadhiyaan laakiin marka ma suurta galaysa xasanow way ku qasbayeen inay loolamaan ay kuraastana baneeyaan way ku qasban yihiin qasbayna ku tahayna hadii kalena waxa weeyaan nidaamka socdaaba ogolaanaynin ba nidaamka imka Soomaaliya kuraasti oo dhan waa lagu loolamaya marka ma dhici karaysa in kuraas reer uu loo xiro kuraas gooniya oo reerkaas oo qayb kamid ah uu xidhnaato waxa Ismaaciil Umar ma iibsaday maaha kuraasta Muqdisho ee kuwiisa looga fadhiyaa inuu kuwiisa ka shaqeeyo iyo wadankiisa ka shaqeeyo intuu Muqdisho dhex socdaan inuu qaska ka wado waa inuu joojo dawladda Soomaaliya ay ka ammaan hesho oo ay ka shaqeysan karaan mas'uuliyiinta Soomaaliya kama shaqeysan karaan waa la isku ogeeyay Muqdisho waa laga yaqaanaa qaska iyo qalalaas uu ka wada Ismaaciil Umar cid booga ma sheekeynayno markaas waxaan leenahay hadday maxay bambadiisii ka ammaan heleen dadku waa kii qaraxyadan bambada Djibouti waa laga dirayay oo isku ognahay oo waa kii 6 gaari lagu qabtay gil
cadaada lagu qabtay lixdii gaari jisjiidka ahaa siday hubka siday ciidanka madaxtooyada ninka maxamed jaamac ducaale oo xukuma laga raray hubkaasi waa kii halkaa lagu qabtay cadaada lagu qabtay hayno fideoyadii codadkiiba aan hayno oo insha allah mar kale aan kusoo celin doonaa dadka dhageysiin doonaa marka waxaan leenahay xasan oo qalalaasaha iyo qaska ka daayo beeshuna maanta xor bay u tahay dowladda Soomaaliyana waxaan leenahay waxaad illa isku egtiin inay dadka xor ay u noqdaan inay ku tartami karaan kuraasta ay qofkay doonaan dhigan karaan siday reeraha kala boo dhigtaan sheekada Ismaaciil Umarna aad uga amaan heshiin waxa weeyaan nin maalin dhaweyd halka faad lala dhacay baan arkay video Facebook dhex socday oo Zakariya la yiraahdo oo xildhibaan maxay hayday Ciisa oo mamaasan oo reecigaala jira oo 20 sano ku fadhiya kursiga ninka kale oo dhalinyaro faad la dhacay ninka iyo ninka kale cali gurane oo xogobay cali gurane la yiraahdo magaciisa sheeg muxuu xagaa iyo waxa weeyaan rag u shaqeeya Ismaaciil Umar oo sidii waxaad moodaa inay tahay rag u jooga Ismaaciil Umar u dhex fadhiya dawladda Soomaaliya qaskeega inay yihiin marka waxaan leenahay dawladda Soomaaliya ee Muqdisho waxaan leenahay markay talada aad ka qaadin ragaasi waxay ku fiican yihiin inaan maxkamadda soo taagtiin oo baaritaan ku sameeysiin weeyaan maxkamadda militariga inay baaritaan ku sameyso ragaasi wax badan oo ka dhacay halkaas wax koogin mas'uulna ka yihiin waxaan leenahay dawladda Soomaaliya ragaasi inaad qabatiin weeyaan maalinta kursiga ay ka tagaan oo baaritaan ku sameeysiin ragaa Zakariya iyo ninka cali xagaale raado واي حسن waxaan ku weydiinayaa oo ku yar noqonaya kelmadaasina waa kelmad muhiim ah maanta marka dib u eegtid dib u jaleecdid maadaama ay maaragtay villa Soomaaliyana ay maxaa ku radaa siyaasadii inageele amba maaragtay fikirkii ku darsanayay Soomaalida ula dhaxroorayay wax waliba maadaama maanta ku hor yimid maxaa Cabdullaahi Farmaajo ma u malaysaa xasanow inay maanta liiskii uu sameeyay iyo wixii uu dabageliyay halka ka dhisay kuraasta uu isagu maaragtay uu amarka bixin jiray maanta ma u soconaysaa mise waxa dhacaysa doorasho xor iyo xalaal uma malaynaya maanta halkay baashu taagantahay inuu soconayso sababtoo ah waxaan arkay qaar kuwii kuraasida ku fadhinayay islaanta magaceegii uga siibtay islaanta reegeediyada islaantooda waxa ku biir reegeediya wax weeyaan midibay goosha ku sida taabayada way dagaalamaysaa deedo ciyaalkii reeraada midii u sida taabay islaantu marka waxaan leenahay oo laga qaadi maayo kursiga laga kicin maayo dhaxal baan u helay bay ku haysaa magara marka waxaan leenahay meesha waxba ku daalina way soconaysaa qasab bayna ku soconaysaa in ay ku soo loolo ku soo kala baxaan hadday taasi dhici weydo waxay ka dhigantahay dawladda Soomaaliya ma jirtaba oo Ismaaciil Bakaad ka dhigantahay hadday taasi dhici weydo sababtoo ah inuu Ismaaciil baarlamaanka Soomaaliya sidoo doona ka yeelo sharaf darre u tahay ragan dawladda Soomaaliya wax isku sheegay rag wax bartay iyo rag kartile iyo isku sheegaya wax u tahay ba sharaf darre u tahay sababtoo ah ma garanayo danta Ismaaciil Umar iyo faa'iidada ugu jirta inuu dhex fadhiisto baarlamaanka Soomaaliya ka dhex shaqeeyo danta ugu jirta ma garanayo anagu inuu tooso oo wanaagsanaado oo shaqeeyo waataan rabno sababtoo ah wadankeeni waxa weeyaan waa wadankeeni xasanow marka waan jecelnahay san Djibouti u jecelnahay wax toosan ma u jecelnahay Muqdisho wax toosan laakiin Ismaaciil taasi ma rabo oo waa ka qalalaasa ka wada annaga wuxuu naga dhaadhicinaya inay farmaajo isdiidan yihiin ama farmaajo isdiidanaadaan ama hebel kale isdiidanaadaan ama maxayday dubeerka isdiidanaadaan ama huwa kabaabka isdiidanaadaan isaga jirtay Ismaaciil Umar waxa weeyaan meesha waxa muhiim ah qofka sidati waa halkeega waa gooni siyaasad waa isku diidi kartiin madaxweyne kale laakiin dal iskuma diidi dalkaagi iskuma diidi kartiin siyaasad oo Soomaaliya waa dalkeeni marka siyaasad iskuma diidi kartiin jiritaanka iyo nabadda Soomaaliyana kuma xidhno hebel baan isdiidnay marka Ismaaciil haduu farmaajo uu cadhoonayo say gaar u tahay laakiin se waxa weeyaan Soomaaliya waa Soomaaliya inuu faraha kala baxo maalayna anagu qalalaasaha dadka reer Soomaaliyana waxaan leenahay waa inaad farta ku wada fiiqdiin oo cabsida iska dhaaftiin oo ninkaas inuu arrimiina faraha kala baxo waa inaad ku qaylidiin oo farta ku wada fiiqdiin anaguna waa nagu taageerayna aad baa u mahadsantahay xasan waa kaaga mahadcelinayaa inta barnaamijka dadkaaga la wadaagtay barnaamijkan aad si wanaagsan u dhageysid laakiin marka hadalkaa ka daba tago waxa weeye xasanow waqooyi iyo koonfurba markaad eegto xasanow inuu Cumar Geelle sababtu ugu dhex milmayo amba ugu dhex jira labadaas wadan waa laba wadan oo markii hore dawlad mid lahaa burbur dhex maray kadibna kala tagay kadibna maaragtay laba wadan oo hadda maanta qolana calan iska taagteen qolana calankii hore ay midka ku hayeen iyo wili sii haystaan iyo xukuumadoodii oo dib u dhisteen Somaliland kulleena ayaguna waxay leeyihiin anagu waxaan rabnaa ina ixtiraaf lana siiyo inaana noo aqoonsado ay leeyihiin ilaa imkana ma soconayso
marka labada dowladood ama labada dal ee mida ee Soomaalida sababtu xasan oo mar waliba ugu dhex jiro dibtooda iyo dhibaatadooda iyo maadarta wax alla wixii ay si fiican u fariisan lahaayeen isfahmi lahaayeen dalkooda horumari lahaayeen wax lagu dhex jiro muxuu yahay jirku uga dhex baxay waxa weeyaan xasan oo ninkani waxa doofaar ma daayir dabeecadina ma daayir yiraahdaan Soomaalidu tirada marka ninkani waa doofaar weeyaan waad ku ogtahay oo taariikhdiisa Ismaaciil lagama sheekeynay wax badan baa taqaan ku ogtahay ninkan makhbaarad buu keenay makhbaarad ninkii aan garanayn waxa weeyaan nacam Soomaalida kala sheegay reej buti way garanayaan makhbaarad waxa la yiraahdaa waa meel gabdho lagu kireeyo sharaabka kululna lagu iibiyo gabdhana lagu kireeyo oo jirkooga gabdhaha ka ganacsadaan weeyaan makhbaarad caynkaas iska laha kaartikaad waa la garanayaa Ismaaciil Umar nin makhbaarad iibinaya baa la yiri wadan maamul wuxuu moodayaa in si makhbaarad in looga shaqeeyo hebel ku dir hebel afuulo hebel maxay kala ka sameeyeen buu moodayaa marka waxa weeyaan ninkani fidnad iyo xumaan isaga gaar oo ku jirto u dhashay iyo diidaya inay qof Soomaaliya oo deganaado oo noolaadaba uu diidayahay marka waxa weeyaan Muqdisho iyo Hargeysa iyo Djibouti waa isku gumad isaga inay wada ololaan ay dhibaatoodaan oo la burbursanaado faa'iidada ugu jirta waa wax weeyaan waa tuu jecel yahay waniga hore u yiri Ismaaciil uu qoslaa markuu maqluuso nin Soomaaliya dhibaataysan uu qoslaa niyadu ka qoslaa marka wax weeyaan isaga dhibta iyo qaraxa iyo balaayada ka taagan Muqdisho aan isku ognahay halku ka taagan yahay iyo mas'uuliyadda ku lahaa cidba kama qarsoono anagii hore uga soo hadalnay dadka soo hordhignay ee sheegnay laakiin se waxa weeyaan ii sheeg muxuu ahaa isaga taabay dan ugu jirtaa qurunkaabay dan ugu jirtaa waayo xasan waxa kale oo ku weydiinaya oo ku yar noqonaya halkaasi maadaama halkaan ka baxay hadda tole oo sii gudbay su'aalaha kale waxaan jeclahay xasan haddii xildhibaan laga doorto Somaliland iyo haddii xildhibaan laga doorto nin madaxa laga doorto magaalada Koonfur iyo haddii laga doorto magaalada Ethiopia gudaheega waliba Kenya Soomaalida qofkaasi si degdeg ugu yeeraa oo qasriga madaxweynuhu uu ku qabila taasina maxay u dhacdaa mar waliba xasan lacag baa lagu shubayaa waxa qasriga lagu yeeray madaxweynaha lacag baa lagu shubayaa lacagta marka lagu shubo waxa weeyaan waa corruption baa lagu sameeyaa marka uu yeero marka qofkaasi corruption baa la gelinayaa qofkii af wax xishoobay noqonaysaa waa lagu shaqaysanayaa marka dambe marka hormar lagu soo dhaweynayaa laabta la isku garaacayaa nin hebel nin dabara tahay nin caana tahay nin nootirsan baa tahay baa lagu haynaya dhulka la isku ka dhigayaa marka isilowdideed farax ilka cadeysay doolasha cadeysideed faankan la dhacdina waxa lagu sameynayaa waxa lagu furayaa tuumba yar oo waa lagu cuntay waa lagu cunsiin marka lagu cunsiina ilaa halkii lagu gaarsiin karayaa lagu gaarsiinayaa waxba lagu gelin lagu gelin marka dambe waa lagu yeelanayaa waa lagu shaqaysanaa haddii waxaad noqonaysaa nin isaga u shaqeeyo oo lagu shaqaystaa noqonaysaa marka waxaan u soo jiidaya waa sida wanaag iyo jacayl iyo kama waa isticmaal inuu isticmaalo markaas uu baahan inuu ku shaqeeyo ku tarki falo uu baahan yahay aad baa u mahadsantahay xasan waa kaaga mahad celinaya waxaa u gudbaya xasanow su-aashii kale aan u gudbaya maasha allah waxa weeye xasanow waxaa dhacday urur baa iskugu yimiday dalka Djibouti oo la leeyahay waxa maaragtay iskugu imanaysa dad afafkii Soomaalida deegaanada Soomaalida oo laisku afkaar la isweydiinaya sidii u horumari lahayd iyo horumarka si looga sheekaysan lahaa iyo wixii dhib jira iyo wixii wanaag jira hawshaasna shirkaasna wuxuu ka dhacay dalka Djibouti oo la iskugu yimid sababtii shirka la iskugu yimid maxaa isku qiyaasay cagjar oo tagay magaalada deegaanka maaragtay Soomaalida oo dhinaca Ciisaha oo dadkii barakacayaashii u tagay iyo shirkii dhacay maxaa isku qiyaasay oo wixii iskaga dhigay wax maaragtay isku mid ah kadibna waxyaabihii ugu muhiimsanaa xasan oo laga hadlayay meesha madasha la iskugu yimid maxay ahayd xasan ku socod waxa weeyaan shirka ay qabeen lagu qabtay magaca Heritage Institute waa shir ay la iskugu yimaado xasan oo iskugu yimaadaan in dadka aqoon-yahanka la yiraahdo ee baxayda beesha Soomaalida oo dhan heeraha Soomaalida oo dhan baa iskugu yimaada shirka aqoon-yahan baa la yiraahdaa shirka aqoon-yahanka isku wada fikir oo isweydaarsi baa meesha ka dhaca sida la sheegay marka sanadkani wuxuu kaga yar duwanaa sanadadii hore waxay ahayd waxyaabo badan baa laga hadlay sanadkan wuxuu ahaa muhiimadu in laga hadlo qulqulatada ka jirta geeska Afrika ayaa laga hadlay qulqulatooyinka ka jira ama Soomaaliya ahaato dhib yar ka jirta wali Djibouti ahaato Ethiopia ahaato
oo qulqulatooyinka baa la doonayaa in lagaga hadlo marka qulqulatooyinka lagaga hadlay shirkani maxaa haddaba uu kaga duwan yahay kuwii hore wuxuu kaga duwan yahay shirkan waxaad moodaa inaa laga tirtiray moodaaba maaha way jirtaa waan dareenay waxaad moodaa inaa aqoon-yahankii iyo dadkii afkaarta ka dhiiban lahaa ee la yaqaanay ee beesha isaaq iyo beesha majeerteen reerka majeerteen ee daarood inaa labadaaba laga mamnuucay baad moodaa shirkan oo loo diiday inay yimaadaan kuma jiraanna waan adkaysa markaan u fiirsadaan dadkii meesha imanayay labadaa reer waa laga yar takooray waxaa looga takoorayay labadaa reer sababtoo ah waxaa la yidhaahdaa farmaajo ay isyar hayaan marka waxaad moodaa ismaaciil cumar inuu meeshani uu maxaan ku tilmaami karnaa bada inuu dhilaysanayaad moodaaba deeyo uu baryootamayo farmaajo iyo abiye yaad moodaa inuu baryootamayo oo uu isku macaaneynayo shirka waxaa lasoo cazumay dad ammaanta ka shaqaynaya inay ammaanaan loogu talagalay farmaajo iyo iisheeg muxuu ahaa iyo abiye inay ammaanaan iyo ismaaciil cumar loogu talagalay baa halkan lasoo aaminay dadka loo soo cazumay dadka lama soo cazumin dadka halkan imanayoo dhani waa inay ammaanaan labadaa nin saddexdaa nin waa inay ammaanaan si weliba abiye iyo farmaajo ay ammaanaan haddii aad fikir ka hor imanaya siyaasadda farmaajo adalka la timaadid laguma ogolo marka ismaacaanaysi ismaaciil cumar dhulka isdhigaya weeyaan uu wareeray dhinac u socdo garan laayay meel ay wax kaga socdaan buu garan laayahay marka inuu ooyo unbaa u hadhay oo isagoo inuu diyaarad qaato inuu muqdisho ka dhaco villa soomaaliya hor fadhiisto ooyo unbaa u hadhay marka waxa weeyaan anaga waxaan leenahay farmaajo oo sheekada ka gurin ninkan albaabka ka furin baan leenahay sababtoo ninkan waa la yaqaanaa markuu ooyo madaxa laga sii garaacaabo waa markuu u daran yahay yaxaasku markuu wax cunayo uu ooyaa ninkan waa markuu wax cunayo u daran yahay markuu ooyo markuu wax raamsanayo marka waxa weeyaan shirkani waxa kaloo ku jira xasan oo shirkani ka muuqda inaan lagu weerar lagu hayo wadamada qarbigaad moodaa si weliba wadamadan maxayda nato si mareykanka iyo faransiiska inaan weerar lagu hayo meeshan hadii hadal hayn xun iyo farkufiiq iyo lagu hayo aad moodaa oo ismaaciil umar inuu leeyahay aad moodaa dadkii meesha yimid weerar wadannada soo dhaweeya shiinaha iyo ruushka soo dhaweeya inuu leeyahay ma garanay awood uu leeyahay deeyo uu isagu ruushka shiinaha kusoo dhaweysanay kuwana ku yeerinay sababtoo ismaaciil umar wixii meesha ku waa la iska garanaya wadannada nato baa waxa meesha ku waa hore badda ku dirleen isagii wuxuu yahay Afrika maadaradii wateen maxay gaajada ka soo cararay waa hore badda ku dir lahayn waxa weeyaan ii sheeg muxuu ahaa waxa meesha ku hayay waa raggaas marka shirkani waa shir xasanow ruwaayadun baa ruwaayadu shir lama oran karo kulankan ruwaayad buu ahaa wuxuu ruwaayad ku ahaa waxa kaloo xasanow aan ka dareemay oo de markaan meeshii dhageystay wax badan oo muhiima kuma jirin laakiin waxyaabo muhiima oo iskaga jireen waxyaabaha muhiimka waxaa kamid ahaa qaar qosala ku jiray waxa maalintii ugu horeysay shirka la furay fadhiyey meeshan maxay maslaxa fadhiyey oo hadlayay waxa kamid ah laba wasiir oo Djibouti wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Ali Yusuf oo rekartikada oo maxay hayday beesha canfareeda laakiin af Soomaaliga waxoogaa yaqaano yara jabsada iyo waxa meesha fadhiyey Ilyas Muuse Dawaale wasiirka maaliyadda ah oo beesha Ciise ka dhashay laakiin af garan waaye ma garanay af Soomaaliga meesha ka maray iyo halkuu kaga lumay ma garanay af garan waaye gujugujada ku haya yaa joogay xagga maxay hayeen marka su'aalaha la weydiinayay waxa su'aalaha la weydiiyay markay jawaabayaan waxa uu Ilyas ka hadlay oo jiray Ilyas Muuse Dawaale uu yiri aaladda internetka dib bay nagu haysaa rag mas'uuliyiin oo siyaasiyiin ayaa ka hadla raggaasi rag waaweyn oo siyaasiyiin raggaasi beelay weeraraan buu yiri beelay la dagaalamaan marka oo beelay haystaan ma garanay beeshiisa meesha lagu haysta ee uu sheegayo cidda haysatana ma garanayna uu noo sheegi doonaa halka isagu internetku ka cabaadayay meeshana fikir baa la isku weydaarsanayay isagu qulqulatooyinka geeska Afrika ka jira marka qulqulatooyinkaasi wuxuu yiri internetku wuxuu ku leeyahay mas'uuliyad weyn buu ku leeyahay guri oo dib weyn buu nagu hayaa guri markuu hadlayo maaha dawladaha kale maaha in isaga isa sheegay waa isaga Ismaaciil Umar wuxuu sheegayaa waa odayga ninkan Ismaaciil Umar buu dib ku hayaa buu leeyahay waa ashkatoonaya marka waxa ka daba qaatay wasiirkii arrimaha dibadda Maxamed Ali Yusuf baa ka daba qaatay oo yiri arrintaas way jirtaa halkaas dib weyn buu nagu hayaa kacdoon buu wadaa ummadda u kicinaya badhadha bululu sheekada baa ku fahmay meeshi waxa haddaba labadoodiiba ka telefoonka ka daba qaatay oo la fadhiyay maslaxa aadan bare ducaale oo xildhibaan Soomaaliyeed oo ku jira xisbiga dimuqraadiga ee Orange la yiraahdo ee ka jira Kenya ayuu kamid yahay waa xildhibaan Soomaaliyeed oo ka soo baxa deegaankan maxayda waqooyiga Kenya deegaanka ay Soomaalidu deegaan ka soo baxa
marka aadan barre ducaale wuxuu yidhi annaga sidaa ma arkano internetku yidhi markaan soomaalida kenya nahay annaga internetka aalada internetka la yidhaahdo ama maxay baraha bulshada la yidhaahdo wax badan bay noo tartay waynana caawisay buu wuxuu ku soo qaaday oo kamid ah oo uu soo qaato muunada uu soo qaatay ama uu soo qaatay micno arrin ka dhacday kenya buu yidhi oo waxaa jiray sharci ay dowladda kenya doonaysay baarlamaanka inay mariso oo ay la irmaanay maxay la foolanaysay 4 sano buu yidhi sharcigaasi 4 sano la foolanaysay buu yidhi sharciga marka 4 sano la foolanaysay dib weyn buu nagu hayn lahaa bay yiraahdeen anaga hadaan nahay Soomaalida Kenya dib weyn buu sharciga nagu hayn lahaa waxaan sameeyay aaladaha internetka aad bay noo caawiyeen buu yidhi oo kuwii aan kaga hortagnay bay ahayd buu yidhi aan ku isticmaalnay si aan u baraarujino ummadda marka anaga wax dhib oo weyn uu nagu hayo ma jiro buu yidhi faa'iido noo yahay marka innaga xaggeena wuxuu dhib ugu hayaa sababtoo ah ninkani meesha joogay madaxweyne isku sheegay isku dhawaaqay Ismaaciil Umar wuxuu diiday in la sheego qurubkiisa tuuga daad u carraa gidaar ku jira ma araga soo waxba xadin ba hadaa dariiqaas tuuga u tiraad ala tuuga u tiraad gidaar ku jira tuuga marka ninkan Ismaaciil Umar waxan waa ma deyni karayo oo qulunkan ma deynayo marka qulunkiisii uu diidayna dibadda la soo dhigay inta yareen hadlayno iyo dhib ku haysa in jimcaha dadka u macnaynayna wixii jira iyo dhib ku haysa marka haddaba shirkani wuxuu ahaa shir lagu amaanayay in lagu amaano uu qabtay Ismaaciil Umar isaga amaal galiyay ururkan Heritage and City leeyahay Kenya saxiyay rugteedu tahay wadannada qarbiga ayaa lacag u shuba ilaa 20 milyan baa sanadkii loo shuba oo dollara oo ku shaqeeyaan markan shirkani uu dheelada kharashka wax oo dhan ba Ismaaciil Umar baa bixiyay dawladda Djibouti bixisay waxa isweydiin leh ururkaasi budget baa loo sameeyay Xasan ay ku shaqeyso laakiin si Ismaaciil iska istibur budgetkiina aan bixinayo waa Ismaaciilays maxay meesha zone French-ka la yiraahdo Djibouti bilaa mishahar bay dadka ka shaqeynayaan zone French-ka Djibouti waa bilaa mishahar shirna uu qabanayo wuxuu leeyahay iska haysta lacagin ana lacag buuxiye kaalay ana qalanay kireynayo ana hoteelani qabanayo ana kharashkiina qaadanayo buu leeyahay dadkii reer Djibouti shaqaalina waa bilaa mishahar oo bishii labaad bay imika galayaan free zone-ka meesha la yiraahdo free zone-ka dhalinyarada ka shaqeysay waxay galayaan bishii labaad Xasan ay mishaarkoodii taagsan dadkaas oo si ay raadaan ay garan laayeen cid ay u doontaan ay garan laayeen maalinba meel baa loo tuuraya marka dadkaasi waa bilaa mishahar isaguna wuxuu leeyahay kaalay ku caweeyay Djibouti oo hadla ana kharashkiina qaadaya marka waxa weeyaan Ismaaciilays iyo arka iga hadla meel gidaar buu ku xidhmay waaniga nii sheegay xaramku tagay xaramkan tagayaa buu Sacuudigu tagay jiddu galgashay inuu ku galgashay qaabila cid la hadashu waayay warna fasax baa la yiri 120 warqadood buu Washington u diray qof la hadlaa la waayay maxay secretary department-kii baa yimid geeska Africa Blinken ninkii loo dhanay baa yimid Kenya uu tagay Ethiopia tagay dhulka dhan buu maray Djibouti uu soo marin oo saldhigga ciidanka ay u joogaan soo Africa oo dhan meesha quraatay Mareykanka ay ciidan saldhig ku leeyihiin u joogaan waa Djibouti uu soo marin ninkan waxba lagama weydiin lama sheekaysan gidaar baa lagu xiray marka ninkii xagga yar Faransiisku laba yar oo xildhibaan iyo saddex xildhibaan oo dowladda Faransiisku jiro wax yar siisiyo hayaayo yimaadayo ku dul ooyaa markuu Faransiiska iman dadku waxay yiraahdaan dawo yimid dawoonu ma imanin wuxuu bariyaa dhowr xildhibaan oo meelaan joogo waxba sameyn kareen oo Faransiis uu barbariyaa uu yiraahdaa baliga qabta dawladahan iyaguna wuxuu guday meel ma gaarsiinay wasiir hebel buu tagaan wasiir hebel baa qabanayay marka xisaabo kale oo la iskaga shaqeeyaa jira adduunkan marka waxa weeyaan Xasanow odagani waxaan imika ay arkaayda buu ku hayaayo inta yar naf buu ka dayayaa shirka naf buu ka dayayaa waxa uu dhan intaad shir waxba ka celinayna ama ka hor joogsanay ku daalaysa Ismaaciil Umarow mishaarka dhalinta free zone-ka si lacagaha hoteelada ku bixinaysa free zone-ka si mishaarkoogii si dhalinta free zone-ka ka shaqeysa Djibouti bilaa mishaarkooga horta si markaa baad ka hayaa shirar iyo wax ka hadi doontaa marka waxa weeyaan shirkan Xasan oo hadaan soo koobo wuxuu ahaa Xasan wallahi yar baa ka weydiinay inta soo gabagabay shirka inta soo gabagabay su'aal baa ka weydiinaya Xasan waxa joogay dhowr xildhibaan baa joogay oo meesha laakiin xildhibaanka ugu tulku weynaa ama maaragtay ugu hadal wanaagsanaa meel waliba ka hadla meel kasta maaragtay markuu hadlayo la moodo inuu dadka u hadlayo Abdul Ciise joogay wuxuu ka hadlayay Xasanow ma qaano wadiyaabaysa wuxuu la hadlayay nimanka Soomaalida ka socda tirinka shanaad iyo maaragtay dhibaatada wuxuu yiri villa Soomaaliya iyo dawladda Djibouti xumaan baa dhex taale dibtaasi xakay ka timiday miyaan la xalli kareyn iyo maxay ugu caroonayaan villa Soomaaliya Djibouti marka ninkaasi siyaasadda dibadda ka hadlaya Xasanow si miyuna taabanayn dalkiisii
oo baabuur ku wato meel uu la baabuur isagoo wato meel uu la maray uu leeyahay diimis iyo wasakh